المدق أحمد محمود حسن أحمد باستو يا عبد الرحمن هرابي أو أجاسي مكة محد علمي باريس أو فدقي سويها مقالة مقدشو وحنجع لها ينانكو بالله أحمد باستو isbedelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahan yahay mise mid gaabis ku keenaya ama bacriyaaminaya shaqada dawladnimo waxaan u arkaa inay tahay munaasib isbedeladan la sameeyo sababtoo ah waxa lagu jira waqti adag iyo duruufo adag qofka xilka loo dhiiba waxa laga rajaynayaa in culaysaadkaas iyo arrimahaas jira iyo dal 30 sanadood ku jira marxalada adag ku shaqeynaya xilka loo dhiibay inuu dadka ka saaro dhibaatada iyo culayska iyo colaadaha ee uu ka dhiga dalkani sidii dalalka beesha caalamka oo kaleeto nabadna dib loo soo celiyo ummadda la heshiisiyo marka haddii culays yimid waxna socon waayaan waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo isbedel si hawshii loo wanaajiyo si adeegii bulsho u noqdo mid si wanaagsan u shaqeynaya aad baad u mahadsantahay Axmed Baasto dib baan kugu soo laabanaya Cabdiraxmaan Hiraabe adigu sidee baad u aragtaa isbedelada inta badan ku yimaada hay'adaha dawladda haddii uu shaqadii loo igmaday uu ka soo bixi waayo waa muhiim in isbedel uu yimaado laakiin hadda in isbedelada jira waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ku salaysan dana siyaasadeed oo aan ku salaysleen dano wax qabadka dawliga ah ee shacabka la gaarsiinayo run ahaantii shaqada lagu ma fahmi karo in muddo 6 bilood ama muddo 3 bilood lagu ma fahmi karo meeshaas waxa ku lumaya fursadihii amba adeegyadii shacabka la gaarsiin lahaa waayo wasiirka xilka loo dhiibay wuxuu aaminsan yahay inuu muddo kooban joogayo laga qaadayo xilka isagoon meeshii fahmin buu ka tagayaa mid kala imaanaya meesha sanado badan baa kulumaya marka shaqadii iyo wax qabadkii ummadda la gaarsiin lahaa bay curiyaaminaysaa waxay kaloo dhiirigelinaysaa musuqmaasuq way dhiirigelinaysaa waayo qofka ama mas'uulku haduusan aaminsanayn inuu shaqadan sii haynayo waxa laga yaabaa inuu isiraado muddada kooban aad dalka joogtid inuu xatooyo sameeyaa laga yaabaa marka job security waa loo baahan yahay sida caalamka hadda dawladaha madaxweynaha la dhameystaan wasiiradu ama kala bar way hayaan inta badan laakiin 6 bilood iyo 3 bilood meel adduunka ka jirto ma jirto Axmed Baasto waad dhageysanaysaa doodda Cabdiraxmaan Hiraabe wuxuu qabaa in isbedelka badan uu dhibaato ku yahay sidii ay shaqada ku socon lahayd adiga taa ma ku muuqataa doodda Dr. Cabdiraxmaan aniga hal waa ku raacsanahay halna waa ku khilaafsanahay hal waa ku raacsanahay in xilka loo dhiibo mas'uul qaadi kara garan kara siyaasadda dalka garan kara dhibka dalka uu ku jiro iyo marxaladaha adag uu taagan yahay oo soo shaqeeyay oo aqoon leh qodobna waa ku diidanahay meesha uu ka yiro doctorku dana siyaasadeed baa laga leeyahay waxaan qabaa wixii markay socon waayeen hawshiina halkeedii ay taagan tahay dawladnimaduna waa shacbiga dareen ka yimid iyo qeyladaan ka timid iyo shaqadii sidii la rabo u socon ayaa isbedelku ku imaanaya aniga aragtidayda haddii marka ay garatay shaqadii inay socon weyso oo ay qof kala magacaawday waa jaanis ay xaq u leeyihiin sidaan anigu qabo Cabdiraxmaan Hiraabe waad dhageysanaysaa hadalka Axmed Baasto anigu waxaan qabaa wasiirku waa maadsan yahay xilliga uu munaasibka yahay kaba soo qaad dawladdu haday wasiir soo magacaawdo ama mas'uul kale ay soo magacaawdo isagoo muddo 3 bilood shaqada hay haday xilka ka qaad waxay noqonaysaa fashil dawladda xageeda ah oo aysan marka hore aysan ka fiirsan markay soo xuleysay shaqada soo xuleysay waxaan qabaa anigu dawladdu inay ku dadaasho xilliga ay joogto xulashada qofka ku haboon shaqada inay ka fikirto haddana waxaan qabaa in qofka muddadii uu shaqada ku fahmi lahaa ay la siiyo oo in aysan adeegi shacabka loo adeegayo aysan meesha ku lumin waxa kale oo meesha ka dhacaya wax la yiraahdo institutionki dawliga ahaa wuxuu noqonayaa daciif macnaha dawladnimo caga badan ku taagan meesha ma imaanayso waayo wasaaradda hadii qof loo soo magacaabo dhowr bilood buu joogayaa isagoo la qabsan meelihiiba wax ka jaajaafanayaa way iska laabanaya xilkii baa laga qaadayaa qof kale loo soo magacaabaya dantiisi umbuusan soo dhaafin wali at least waa inuu qofku sanad jooga wasaaradda iyo ka badan oo dawladdu halkii ay qofka intay xilka u dhiibto ay isla markiiba ka qaadi lahayd waa inay ka fikirtaa inta aysan magacaabin oo ay soo xulato qof u qalma shaqada ay u dhiibayso
haye Axmed Baas arintu xulashadu waa xubin kamid ah oo runtii waxaan rabaa inaan xaqaa'iqa aan ka wada fogaan marka in la fiiriyo wasiirka la magacaabayo aqoonteed inuu leeyahay wasaaradda loo magacaabayo waa arinta lagama maarmaanka ah mas'uuliyad ahaan qofka la keenayaana inuu noqdo qof dhisan oo mujtamacu raalli ka noqon karaan marka la magacaabo sababahaas in la sameeyo waan qabaa laakiin dowladnimadu waa orodkii la oran jiray qori isku dhiibka oo kale taway xilku qofka uma dhalan dhaxalna uma leh haddii uu shaqada qaban waayo ama isbedel samayn waayo anigu waxaan qabaa in meesha laga kacayo dowladuna systemka ay martay waxaan qabaa inay ku saxsan tahay laakiin xulashada inay wada adkayso aniga Cabdiraxmaan ba waa isku raacsanahay waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Hiraabe qofkii shaqadii ka soo bixi waayo in dhaxal uma lahan waa laga qaadi karaa in hase yeeshee inta wasaaraduhu isbedelayeen run ahaantii wax muuqda oo la taaban karo lama qaban waxaana sabab u ahaa wasiir kasto isagoon fahmin baa xilkii laga qaaday ama iska xasilayay waana sidaas oo kale wasaarad kasta amba xil kasta oo qofkii isagoon fahmin in hadana laga qaado marka anigu waxaan u arkaa inay arintaasi ay ku jirto macnaha in arin in dana kala ah amba in la siyaasadeeyo in mas'uuliyadii iyo shacabkii loo adeegayay marka dawladdu runtii waxaan aaminsanahay in adeegyada shacabka si loo gaarsiiyo in ay mas'uuliyiinta ay u dhiibayso marka hore ay ka fikirto intii ay ka daba tagi lahaayeen waqti badan la lumin lahaa dawladaha qaar caalamka ka jira sida Mareykanka oo kale xisbi kasta dalkaas wuxuu xukumaa 8 sano 4 sano hore iyo 4 sano dambe afarta ugu horeysa waxa lagu talagalay inuu fahmo kaliya afarta kalena inuu wax qabto maxaad moodaa marka 4 sanadood kaliya ka hadlayna anigu waxaan baqabaaba dawlad kasta ee Soomaaliyeed in at least ay 8 sano dalka joogto si ay 4 sanana ku fahanto in afarta kalena ay dalka wax u qabato sidaas oo kale wasiirada xilka loo dhiibayo 6 bilood iyo 3 bilood iska daayay waa in ay dawladdaas la dhameystaan ama ay 3 sano ama ay 2 sano ay dalka hayaan anigu sidaas aan aaminsanahay howlo adag ayaa horyaala dawladda sidii wax looga qaban lahaa oo amniga ugu horeeyo mudooyinkana waxaad moodaa in waqtiga intiisa badan ay gelisay ama ba ay ku mashquushay mas'uuliyiin xilka laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo maxaa talaabo dawladda laga rabaa ama ba looga baahan yahay inay qaato Axmed Baasto dawladdu waxa uu yaala shaqo aad iyo aad u dhib badan waxaana lagama maarmaan adeegii bulshada Soomaaliyeed ay u baahnayd inay gudato waajibkii loo idmaday muddada hadda sanadka iyo barka dawladani ay jirto runtii dalku maahan dalku meel gaar ah maahan waa ka soo baxay waa dawlad federaal ah oo weyn oo aqoonsi haysata dadka ay magacaabayso oo xilalka loo dhiibayo waa inay sidii aan hore u soo sheegay ay ka dhigto dad qaadi kara masiirka ummadda dhibkana ka saari kara waajibaadka loo idmadayna gudan kara dalku nabadgelyo u baahan yahay dawladdu inay dadka horumarkiisa ka shaqaysa loo baahan yahay waxaasoo dhan baa u yaala inay ka kacdo halka ay taagan tahay iyo howlaha siday u socdaan isbedel cusub la timaadaan anigu ku talinaya Cabdiraxmaan Hiraabe adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si howlaha horyaala dawladda ay wax kaga qabato maxaa talaabo loo baahan yahay inay qaato anigu waxaan qabaa in dawladdu istaraatiijiyadeeda siyaasadeed ay bulshada adeega ku gaarsiinayso si ay u fuliso waa inay dadkii shidaalka u noqon lahaa oo shaqadaas qaban lahaa in ay ka fikirto oo si wanaagsan oo xulasho ku salaysan iyo qofka ku haboon howlahaas inuu horta in marka hore ay ka fikirto xilka qaadista faraha badan ee qofkii inta xilka loo dhiibay 2 bil kadib laga qaaday